lacag iyo qabiil baa bedeshay maanta. ku kastoo bannaankaas ka yimid waa lala soo cararaa gabdhaha. baryahan dambe deen bay ku guursadaanba markay afrika yimaadaan. xaqiiqdii marka laydin tilmaamo ayadaa laga qaadaa xalwada la bixinayo iyo iisheeg arooska waxyaabaha la dhigayo. dib baan kaaga soo dirayaa waa socota. dib baan kaaga soo dirayaa maalinta diyaaradda uu raacay ugu eg tahay mobilkiisa iyo telefonkiisa inuu shaqeeyo. subxaanaka yaa ilaahay. ragga waa inay rag noqdaan, waa inay mas-uul qaadi karaan. waxa ugu muhiimsan ee maanta la la'yahay waa qof mas-uul qaada. qof mas-uul qaada. bacdamay xaaladdu sidaa tahay, xaqa ugu horeeya ee wiilka lagu leeyahay ayaa wuxuu yahay ka mid ah gabadhaa habeenka lagu meherinayo ee shiiqa intuu gacanta ka qabto uu yidhaahdo ma aqbashay haa uu yidhaahdo gabadhan mas-uuliyaddeedii ma qaaday waayo macnaha. hooyadeed iyo aabbeed ma ka soo wareejinaa oo ma kugu soo wareejinaa? war ma xil qaadi kartaa? war ma sooran kartaa? meel ma dejisan kartaa? caafimaadkeedii waxeeda ma ka warhayn kartaa? haa buu yidhi. falow sadaquu allaha lakaana khayran lahum. hadday u run sheegi lahaayeen ilaahay, runsheegaasaa u khayr badnaan lahaa. laakiin agtarkooda khaa'iniin bay noqdeen. badankooda in yar oo rabbi u naxariistay maahane subxaana wa tacaala. marasho waa lagama maarmaan. masaruuf waa lagama maarmaan. minin ama guri ay degtaana waa lagama maarmaan. la tajuubi maayo, la qasbi maayo, laakiin waa intuu kari karo. askinuuhunna min xaysu sakantum min wujudikum. inta aad kari kartaanoo awooddiina ay tahay dejiya. hadal macna lagama haysto, jeeb fiicanna lagama haysto ragga maanta jooga. hadal fiicanna ma laha, waxqabad fiicanna ma laha. maxaa lagaaga sabrayaa marka? qofka waa in laba loogu sabraa. inuu wuxuu wax bixin karo, xuquuqaadka lagu leeyahay uu dhiibi karo. haddii kalena waa inuu sood fiican iyo hadal fiican leeyahay. qawlun macruufun wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatabacuhaa adan. qowlka macruufka iyo lisaanka macruufka wax kasta ka fiican. ma lisaan fiican ay naga haystaan gabdhaha? waa maya. ma waxay naga haystaan wax dheef? waa maya. maxay noogu sabrayaan marka? waayahay wax ay noogu sabraanaaba jirinba xaqiiqda marka la fiiriyo. sidaa darteed wiil kasta oo xaas ah ama doonaya hadda inuu galo waa inuu si fiican isaga fiiriyo waxyaabaha markaa lagu leeyahay. ma wada bixin karno, lama wada awoodi karo, balse qofka awooddiisa intay tahay juhdi waa inuu bixiyaa, waa in dadaalku uu sameeyaa. wiilka waxaa laga rabaa sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, mar kasta uu quudanayo inay inantu quudato, mar kasta uu dhar xidhanayo inay ayadu xidhato. waxaa wiilka laga rabo muslimka ah waa lagama maarmaan in uu la yimaado xaaladda noocaas ah. waa shay muhiim ah arrintaa in laga helo. fuqahada qaar baa waxay tilmaameen xadiiska ayagoo fiirinaya hadduu koobashiin ka soo cabo ama kafee ama sashaah ama galaas liin ah macmacaanlaha iyo bagnaanka waa inuu usoo qaada ayadana, inuu ayadana u keeni karaa. maxaa waaye xaqa ay nagu leeyihiin gabdhahan aan qabno? markii ninkii weydiiyey muxuu yidhi markaad cunayso waa inay cunto, markaad cabaysana waa inay cabtaa, markaad labisanayso waa inay labisato. sala allahu calayhi wasalam. ha habaarin, walaa tuqabix. fool madoobe, wejigaaga madow, wejigaaga allah gubo, habaar ha kugu dhacdo, adaanba ku nacay hadhihin buu dhahay nabiga sal allau alayh wasalam. walaa tuqabix. waa xaq wiilka lagu leeyahay. caaytama ma aha wiilka mu'minka ah. wax caaya ma aha, lacaan ma aha, walaa siima gabadha la qabo.
weligiis awr ma caynin baa la dhahay nabiga sal alla alay wasalam iyo dameer iyo daabadba. anagana daabad intaan soo dhaafnay dadkii bannaanka soo dhaafnay xiladii kuu dhaxday oo sariirta aada la aadaysaa maanta la caynaa. walaa tuqabix habaarin walaa tahjur ila fi lbeyt, guriga maahana meel kale ha uga haajirin. markay kaa caraysiiso oo xoogaa la caroodo meel kale ha soo seexanin, guriga imow. see xal ku imaanaa marka? xalka see ku imaanaa? gabadhii shidantay ee holacday oo qalbigeedii karay haddaad haddana hooyasha uga sii darto, soo waalasha ma aha, way waalanaysaa. marka looguma talagelin. rasuulku markuu cabirayo guriga mooye meel kale ha uga haajirin, wallahi xikmad weyn baa ku jirta, xikmad weyn baa ku jirta. kuwa mar allaala markay ay xanaaqaan isla markii gaariga startoo kacsado isla markii baxa, macnaha waa sii danqinayaa, wuu sii xumaynayaa, wuu jebinayaa gabartii. ma aha, looma baahna. ka doondoon hadal haddii hadli weyso, iska dhigdhig. mar allaala marka laysku kaca habeenka waxaa la keenaa waxyaaba mataqaanaa aan horay loo arkin. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aabe looga dayda ayuu ahaa dhaqanka guriga, aad iyo aad looga daydo rasuulka sala allahu alayhi wasalam. wallaahi haddii lagu daydo qaab dhaqankiisa raggu kheyr wanaag bay gaarayaan. heer wuxuu gaarayaa uu la baratamo, uu la ordo, yirahdo ii bax ord. markaasuu gaaraa sala allahu alayhi wasalam. heer wuxuu gaarayaa uu kala garto xilliga ay caraysan tahay afadiisii xilligaysan caraysnayn. waan ku ogahay markaad caraysan tahay markaadan caraysnayn. yaa rasuulallah seed igu ogaatay bay tiri. waaba qarsadaaye. mar baad dhahdaa warabbi ibraahim, marna waxaad dhahdaa warabbi moxamed markaad dhaaranayso. haabay tiri wallahi waad ii garatay. warabbi moxamed markaan leeyahay waan kuu xiisa qabaa, macnaa cara ma jirto. warabbi ibraahim markaan magacaaga inaan sheegaa nacaya bay tiri. wa khayru khalqi illaah sala allahu calayhi wasalam. xaaladda marka ninku waa inuu dareemi karaa, waa inuu leeyahay mas-uulid uu qaaday. waa shay muhiim ah, waa arrin mataqaanaa qadarkeeda leh, waa arrin xaajadeeda leh. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam in allaale inta ilaahay makhluuqii u abuur waa ninka ugu khayrka badan sala allahu calayhi wasalam. gabar uu la jiifo xaaskiisa ah ayaa dhiiggii ku yimid. inta uu ka qaada marada dhiigga uu gaaray iyo meesha uu gaaro gacantiisa ku dhaqaayay calayhi asalaatu wasalaam. na naga du, na naga leexi, na iska astur, na iska nadiifi, naabay wax ku dhammaadeen. yaa samayn karaa? galaaska caanaha aan cabaaya bay tiri caaisha, meesha aan ka cabay dhareerkeygu leeyahay yuu rasuulku dhihi jiray xaggee saartay afka? meeshaasaan saaray. meeshaasuu ku beegi jiray afkiisa sala allahu calayhi wasalam. lafta hilibka meesha aan ka goosto yuu dhihi jiray xaggee ka goosatay? meeshaasaan ka goosan jiray. kaaga sii darna wa ana xaa'id, dhiig caadana waa qabay bay tiri caaisha radia allahu tacaala canha. haddaba ragga wax badan baa si ka ah. xaqiiqdii ma naqaano sida xaaladdu ay tahay. ma macnihii dhaqankiisan fahmin? allahu aclam. ma marka lays doonaya keliya xubbigii jacaylku jiraa? allahu aclam. ma waxay ka tahay yaan lagu dareemin sida odayaashii hore oo kale? wuu isqarinayaa miya? wuu isqarinayaa. intaas wuxuu diidayaa iyay kuga af baranin iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. si xaaladdu tahay la garan maayo. marka bacdamay xaaladdu saa tahay walaalayaal, wiilasha muslimiinta ahoo dadaala, ilaahiynana ka baqa, daacada ilaahay ku socda. guryahan dhibaatada ka taagan yahay waa la wanaajin karaa, waana laka hanti yaraa, waana laka xoolo yaraa, waana laka adduun adkaa xagga dhaqanka, waana laisjeclaa. hanti meelaan kala dhigna ma laha. guryaheena waxa yaala wallahi haddii 7 gaari la keenana ma qaadayaan xaqiiqda marka la fiiriyo.
waana la dhaqmi la'yahay haddana waana la dhaqmi la'yahay dahab way yeelatay ii sheeg wallahi ninaas xilligii nebiga la yidhi bax faraati dahab faraati oo bir ah xataa soo raadi gabarha lagugu daree faraanti bir ah soo raadi inantaa lagugu daree wuu soo waayey xaqiiqdii sida xadiisku tilmaamaayo maxay haysataa maanta oo la dhaqi la'yahay dahabkii 21 way haysataa kii 39 way haysataa maca daalika lama karo maca daalika lama dhaqi karo war ma maqasho wax ma samayso wax ma yeesho 24 saac saasaa xaajo looga kala fala 24 saac colna ma aha heshiisna ma aha tiyaa run loo maleeyey waa in heshiis la ahaado waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay wiilasha mu'miniinta xuquuqaadka lagu leeyahay taasaa ka mid ah gabadhuhu waa inay u dardaarmaan wiilasha khayr istawsuu binnisaa'i khayran dumarka khayr u dardaarma way feer qaloocanaa laga abuuray haddaad isdhahdaan toosiyana waad jebinaysaan walaalayaal haddaad sideeda u dhaaftaanna qalooceeda ka zuuli mayso sideed u qalocnaanaysaan xataa haddaad ku raaxaysanaysaan buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam isaga raaxayso olyaha ciwaj ayadoo qalooceeda qabto waxba toosiskeeda iska daa ha ku mashquulin erin ma toosis feer toosi waayahe feer ma la toosin karo haddii la damca in la toosiyo kasartoha waa jebinaysiin buu dhahay nebiga kasriga iyo jebitaanka aan idiin sheegayana waa furiinkii talaaqa waaye saa darteed haddii aad rabtaan si kale in idinkugu toosnaanayso maba jirtaba lan tastaqiimu laka cala ariiqa wadda maba kugu toosnaanaysaba ma kugu toosnaanayso ee istawsuu binnisaa'i khayran khayr u dardaarma xaq lagu leeyahay wiilka muslimka ah ilaahay subxaanahu watacaala mar allaala markuu tilmaamahayey nushuusnimo hadday la yimaadaan ila waa xaq wiilka lagu leeyahay ilaah wuxuu yidhi wallatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila taad uga cabsataan shiqaaq iyo khilaaf iyo amar diido haddaad uga cabsataan wallatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna waaniya buu dhahay ilah subxaanahu watacaala faciduuhunna wacdiya wahjuruuhunna fi lmadaajic ama jiifka uga haajira madaajic mucaamalaadkaba ka goosa ayadoo dhanba 3 maalmood ha ka badinina colka lama ogola diinta islaamka walaa siima dadka isqaba faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila marka waa in jaranjaradaa uu maro jaranjaradaa inuu markaa maro washii lagama maarmaan ah laba hadal marka la isdhaafsado inuu qofku yiraahdo talaaqan waxyaabo kale uu soo tuuro marka dhibkeeday markaa leedahay waxaan filayaa codku inuusan waadix ahayn waxaan filayaa ama go-go' inuu markaa ku jiro marna wuu go-go-ayaa qiyaasaayo marna kor buu usoo kacayaa marna waxaan filayaa inuu markaa go-go' markaa yahay marka in shaa allahu tacaala dumarka saasuu ilaah yiri subxaanahu watacaala السلام عليكم. wahjuruuhunna fi lmadaajic hunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila un aayadda intaas waxaan ka rabnaa xaqa wiilka lagu leeyahay inay ku jirto dulqaad iyo inuu wax xalliyo wax xallitaan iyo in wax la xalliyo waa xaqa lagu leeyahay wiilka muslimka ah maa xaq gabarta lagu leeyahay ileen xalka waxaa keena qofka mas-uulka ah ayaddu waxay tilmaantay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa
bima fadala allah bacduhum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim. marka xaaladaasaa loogu talagalay asaga inuu sameeyo jaranjaraadkaasna markaa uu maro. haddii jaranjaradaas la maro shiqaaqa wuu yaraanayaa kow, teeda kale hadmiga iyo dumidaanka gurigan wuu yaraanayaa. mar kasta inuu isticmaalo qalbigiisa ay ku jirtaa fiican, idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. xumaan haddii lagugu sameeyo wanaagku bedel, waayo midka adi iyo asaga cadaawada ay idinka dhaxayso haddii sidaa la yeelo wuxuu noqonayaa weli xamiim ah. kaannahu waliyun xamiim. weliga waxaa loo jeeda qofka kuu dhow, xamiimkana qofka kuu beer jilca oo mar allaala markaa dhibaataysan tahay kula dhibtooda, xamiim baa la yidhaahdaa. marka taasna waa xuquuqaad kale oo lagu leeyahay wiilasha mu'miniinta ah. wiilka mu'minkaa xaqa kale ee lagu leeyahay waxay tahay aadaab haddii loo baahdo inuu wax sajriyo, wax canaanto. dilka xooga badan inuu mamnuuc yahay, dilka xooga badan inuu mamnuuc yahay. sidiisaba garaacidda ama tumitaankana waa waxaan qiime iyo wanaagba ku jirin. waayo nebi moxamed nin buu ugu diiday naag inuu naagaton badan yahay. ha guursanin abujahm falaanida casaa calaa caatiqihi, qoortiisa kama dhiga usha. maxay ku fasireen? waa nin safar fara badan, kasiirul asfaar. ama waxay ku fasireen waa nin daraab ahoo garaacid badanoo dumarka markaa tuma, dumarka garaaca. saa darteed baa usha garabka u saaran darteed aa loogu diiday. marka taa waxaad ka fahmaysaa waa akhlaaq xumo iyo dhaqan aan wanaagsanayn. raggii naagahoodii garaacay markii rasuulku uu mimbarka ku soo istaagay wuxuu yidhi kuwaas akhyaara ma aha, akhyaar ma aha. macnaha qof bini aadam ah hortaada taagan, ul soo qaado, garaac. ana waxaaba naqaanaaba ii sheeg suunka la furto, waa laga baxayba usha, amase feer, amase haraati, amase wax noocaas oo kale ah. akhyaar ma aha. mimbarkuus istaagay sala allahu calayh wasalam. gurigayga xalay waxaa ku soo tawaafay oo yimid buu dhahay nebiga dumar fara badan oo ka sheeganaya sawjoodkooda iyo raggooda lasoo tumay. kuwaas akhyaara ma aha, akhyaara ma ahan, akhyaara ma ahan. marka idan waa akhyaar la-aanimo bay markaa keenaysaa. ma waxaa dhici karta buu dhahay rasuulka asagoo waaninaya, weliba xaajatu wadaac asagoo taagan, axadkiin inuu u qasdo ayacmidu axadukum imra'atuhu, naagtiis miyuu u qasdayaa? ma garaacayaa sida cabdigii addoonka loo garaaco oo kale? laga yaabee aakhir yowm, habeenka saqadee dhexe inuu sariirta la aado, qof uu tumay maqribkii ama cishaa'igii. marka xaaladaha noocaas oo dhan waa xuquuqaad loogu talagalay raggu inay markaa sameeyaan amay markaa la yimaadaan. xuquuqaadka mushtarika waxba ka tilmaami mayno, taasoo ku saabsan in mid kasta ka kale xaqaas ahoo labadaba loo baahan yahay inuu la yimaado. in familiyada lagala ixtiraamo, in mataqaanaa siraha laysku qariyo, waxyaabo muhiim ah ayaa jiro loo baahan yahay. mid kasta gooni ahaan baa looga rabaa. xuquuq mushtarig baa la yidhaahdaa. gabartana waa laga rabaa, wiilkana waa laga rabaa. labadooda inay macan ula yimaadaan ayaa la rabaa. asraartoo laysku qariyo, in mataqaanaa ludfi lakala helo, turitaan, isku naxariisasho. khaasatan walaa haddii marad ama xanuun markaa yimaado, suuragal. caaisha maxay tidhi? markii laygu been abuurtay, waa ifkigeedii, rasuulka sala allahu calayh wasalam wax ishaki geliyey kama arkin, ilaa waxaa ishaki geliyey ludfigii iyo turitaankii aan ka heli jiray markaan xanuunsadaan ka waayey. guriguu soo gelayaa, dadkuu salaamayaa, kayfa tiikum, tii ka waran buu leeyahay. ma ahaan jirin dabcigiisa, laguma aqoonin. laakiin waxbaa maalintaa la bidhaamiyey, munaafiqiin baa wax isku qastay. saa darteed ludfiga waa shay muhiim ah. haddii uu xanuunsadana in ludfi uu ka helo, hadday xanuunsatana inay ludfi ka heli karto, in dabacsanaan laga heli karo, in isku mataqaanaa ilan laba qofoodoo ilaahi subxaana watacala wax isugu daray waayo, midkoodka kale naxariis uu u tilmaami karo oo laga heli karo. waa shay muhiim ahoo markaa loo baahan yahay. xaamil bay noqon kartaa, saacidaadkaaday u baahan tahay, waa kow. way xanuunsan kartaa, waxay u baahnaan kartaa waxqabadkaaga. waxaa dhici karta umul waxay u baahan tahay saaciditaankaaga. xaaladaha noocaas oo kale markaad islaan duqu ayeeye aada u keento,
iyo markaad adiga saacidayso weliba shaqo aad xataa haddii la doono intaadan aadini markaad timaadaba aad wax qabato way dareemi kartaa marka waa xaq wiilka markaa lagu leeyahay wiilka lagu leeyahay waa shay muhiim ah waa arrin isku keeni karta isku soo dhowaasho waa arrin keeni kartaa iskalsooni waa arrin keeni kartaa qofkan in loo arko inuu yahay qof mas-uulkii markaa qaadi kara xaaladahaasoo dhan waa shay muhiim ah oo markaa lagama maarmaan ah ayna wanaagsan tahay wiilasha mu'miniinta ah inay markaa sameeyaan ay wanaagsan tahay wiilasha muslimiinta ah inay markaa la yimaadaan ay wanaagsan tahay in wiilasha muslimiinta ah aysan markaa ka tegin dabciga iyo xaaladda wanaagsan haddaba wiilasha xuquuqaadkooda haddii aan meesha ku dhaafno inkastay aad u fara badan tahay haddana waxaa loo baahan yahay oo la rabaa waxay tahay in gabdhaha ayaguna ay ka soo baxaan xuquuqaadka markaa lagu leeyahay way ka tiro badan tahay wayna ka badan tahay kuwa wiilka markaa lagu leeyahay xaqa wiilka lagu leeyahay waxaa ka badan xaqa gabarta lagu leeyahay waa cilmi waa ka weyn yahay waxaa kaaga filan haddaan amri lahaa axad inuu axad kale u sujuudo gabadha waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo haddaan amri lahaa axad inuu axad kale u sujuudo weli waa waqti asaga intay u naxeenoo daran uu ku jiiftay nebiga oo dhibaatay waxyaabo badan ay soo gaartay faris iyo ruum ay soo arkeen inay mataqaana u sujuudayaan dadkoodii rasuulkii allow adigaa ka owliyeysan wasaqdaas iyo daanyeertaasba waa loo sujuudaa aan ilaahay aaminsanayn adaa ka owliyeysan oo ka dhow rasuulka amalo maan kuu sujuudno heerkaasay maxaba ka gaareen haddaan amri lahaa axad inuu axad kale u sujuudo la amartu lmar'a gabadha waxaan amri lahaa inay sawjkeeda u sujuudo ma dhihin inay aabbaheed u sujuudo ma dhihin inay hooyadeed u sujuudo ma dhihin in waxyaabo kale oo markaa la tilmaamay balse waxaan amri lahaa sawjkeeda inay u sujuudo waa cilmiga iyo weynaanta xaqa uu leeyahay uu weyn yahay darteed yuu rasuulku saa u cabirayaa sala allahu calayhi wasalam idan gabadha muslimadda ah mar allaala marka lasoo guursado waa inay ogaato amarka waxaa looga dambaynaya inuu ninka markaa yahay waa meesha dhibka ka jiro isfahmid la-aanta meeshay ka taagan tahay ugu horayntii waa meesha ayadana waxay wadataa amar gooni ah asagana wuxuu wataa amar gooni ah marka laba amar ma isla soconayaan hal qofaa la rabaa in amar la siiyo qofna la amro qof inuu madax noqdo qofna madax loo noqdo qof inuu taliyo qofna loo taliyo nidaamka adduunkaasaa ku dhisan laakiin laba isla talinaynaa ma soconayso qof kasta qofka kale amaruu bixinayaa ma soconayso qofna amar ha la siiyo qofna amarka ha qaato saasay markaa ku soconaysaa idan gabadhu inay garato yaa mas-uuliyadda iska leh yaa amarka iska leh yaa looga dambaynayaa waxaan ilaahay macaasiisa uu diiday waxaan ahayn alrijaalun qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allaha bacduhum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim waa laba tilmaan laba sifo iyo laba cilad darteed baa ragga maamulka loogu dhiibay kow bima fadala allaha bacduhum calaa bacd qaarkood qaarka kale fadliga ilaahay uu ka siiyey subxaana wa tacaala bimaa fadala allah marka la leeyahay maaha fadli xagga nasabkaa waxyaabo kale waxaa loola jeedaa waa xagga abuurka waxyaabo dumarka aysan lahayn bay raggu leeyihiin way ka karti adag yihiin xagga quwadda iyo xoogga xagga kamaalka caqliga ilan caqliga kamaalka ragga iskale ama dumarka waa nusqaan waxyaabo fara badan oo noocaasa ayuu ilaahay tilmaamayaa fadliga marka kaasaa laga wadaa laakiin xagga khayrka iyo nasabiyadda iyo ilaahay u dhowaashaha labada waxay ku xihan tahay qofkii taqwo badan inna akramakum cinda allaahi atqaakum ama xagga kale ee xagga khalqiga iyo kartida iyo awoodda iyo deganaanshaha dulqaadka intaasoo dhan baa loola jeedaa bimaa fadala allah bacduhum calaa bacdin iyo wa bimaa anfaquu min amwaalihim nafaqaynta ay maalkooda markaa ku nafaqaynayaan labadiiba maanta waa la tirtiray ta koowaad waayo waxaa lagu tirtiray dumarkii waxaa la yidhi wax kasta oo ay raggu qaban karaan idinkana qabta hadday noqon lahayd inay mataqaanaa xafiis ka shaqayso hadday noqon lahayd inay baxdo hadday noqon lahayd inay mataqaanaa
baabuurkeeda wadato, hadday noqon lahayd arrimooyin fara badan. idan bimaa fadala allah bacduhum calaa bacd, inta loo ololeeyey oo xuquuqaad dumar baa loo doodayaa la yidhi iyo bohol ka dhaceen dhammaantood marka hore. marka waxay isku arkeen inay la siman yihiin amase markaa ka sarreeyaan. marka taa waxay kaliftay inay meesha ka baxdo ateecitaankii ragga la ateecay. ta labaad, wa bimaa anfaquu min amwaalihim, miiskaa masaruuf loo saari jiray, laakiin ayadaa laga yaaba maanta inay saarto, taasna way ka baxday. markaasaa la tilmaamay dumarku in ay noqdaan safka ugu horeeya, inay noqdaan waxa keliya ee ayagu amarka laga yaaba inay bixin karaan marka gobol ka mid ah. saa darteed bay ku amraysaa, ay ku leedahay taana samee, kanna qabo, intan wax ka bixi. waxyaabaha ee tashiga ah iyo waxyaabaha hawl iska qabashada waa mawduuc kaloo gooni ah, laakiin qof kasta waa inay u kala baxsanaato hawshii loo igmaday ee ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. isi saaciditaanka mayay kalifin inay u aragto xuquuqaad waajib ku ah ninka korkiisa. marka saa darteed labadaa haddii sidii hore ay ku soo noqoto, marka wax badan baa xasilaya, wax badan baa degaya. laakiin ayadana way soo keentaa. markii la isguursanayaaba waxaa lagu heshiiyeyba iyadana inay bar bixiso 50%, asagana 50% inuu markaa bixiyo. idan ayada nusay leedahay soo maaha maamulka, ayada nusay leedahay, asaga nusuu markaa leeyahay. waxaa lagu heshiiyey makiinada dhulka lagu xaaqo inuu asaga keeno, tan wax lagu shiiday inay ayada keento, sariirta inuu asaga keeno, joodariga ayada ay keento, bakeeriga asaga inuu keeno, saxankii asaga ayada ay keento. idan marka meesha waxaa ka baxday bimaa anfaquu min amwaalihim. markaa kadib buu ilaahay ammaanay dumarka qayb ka mid a, fasaalixaatun qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah. صالحات baa jira, xaafidaad baa jira, qaanitaad, kuwa ilaah subxaana watacaala ateecsan subxaana watacaala noocaasa. ama raggooda ateecsan sida mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen lilgayb, waa markuu ninku maqan yahay, nafteeday ilaalinaysaa iyo gurigiisa, bimaa xafida allah. marka taana waa xaq kale ee gabadha muslimadda ah lagu leeyahay. xaqa kale gabadha muslimadda lagu leeyahay, ninkii saxaabigahay nebiga u yimid, xaqa mideen ay nagu leedahay iyo xaqa aan ku leenahay waa maxay markuu yidhi. xaqa wiilasha lagu leeyahay markuu u sheegay gabdhahana wuxuu yidhi, markuu rasuulku tilmaamayay inaysan guriga ka bixin ilaa biidnihi, waa kow. inaysan qofna u fasixin ilaa qofu asaga u idmo maahane, waa labo. waa inaysan furashiyaalkiina aysan ku soo fadhiisanin, dad markaa u ikraahaysaan waa tunacaysaan. macnaha joogista iyo amar qaadashadu waa xaq lagu leeyahay gabadha muslimadda, xataa fii guriga ilaah subxaana watacaala, beytka rabbi, masaajidka markay aadayso. gabar yaynan bixin, yaynan aadin. amase rasuulku wuxuu dhahay ida ista'danat, hadday fasax ka qaadato axadkiin imra'adiisa masaajidka inay aado, falaa yamnacha, yuusan u diidin. macnaha iska baxda lama dhihin, haddii fasax ay weydiisato markaas yuusan u diidin. asagana inuu diida waa mamnuuc, ayaduna inay iska baxda waa mamnuuc. haddii fasax caam ah la siiyo oo ay iska bixi karto waa mawduuc kale, laakiin mar walba waa in la ogaado sababta oo fasaxa loo qaadanayo maxay tahay. sababta fasaxa loo qaadanayo xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah, kow, qofkan mas-uul buu soo qaaday oo hooyo iyo aabba ayuu ka soo qaaday mas-uul inuu mas-uulkaa yahay. meel aad aaday iyo meel aad u sheegtay ma jiro, waa baxday. habartiiyo ordaysaa timid hooyadeed, ama aabbihiiyo orda ayaa yimid, aadayraha bilaahi aaway, muxuu dhahaa? waa inuu sheegaa wax, waa inuu dhahaa ama suuqay aaday, ama waa inuu dhahaa ma idinka idin soo aaday, ama waxun waa inuu sheego. ka war meelba ma lagugu ogaba, aaway gabadhii baa layidhi, ma ogi. waa mas-uuliya daro, macnaha waa xilkasnimo daro. waxay noqonaysaa arrin aan wanaagsanayn. aaway gabadheeni, ma ogi meelay aaday. in la tufso ma istaahayno. yaa u keenay? ayadaa u keentay. saa darteed isti'daanka wax weyn baa ku jira. meel waa in lagugu ogaado, dhib baa ku qabsan kara, cilad baa kugu imaan karta, gaari baa wax ku yeeli karaa, ciyaal suuq baa beel kaaga soo bixi kara, tuugaa ku dili kartaa, waxyaabo fara badan. waa in meel laguu soo raaco la helaa, calal aqal raadkaaga in lasoo raaci karo
shay muhiim ah. idan sharaf bay u tahay marka ayada gabadha isti'daan qaadashada ayagu dhib iyo waxay u arkaan waxyaabo adag, laakiin waxay u tahay waa karaamo, waxay u tahay sharaf ilaahay uu sharfaya subxaana wa tacaala. ayagaa sharafta iska qaadaya, laakiin saa darteed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray arrintaa inay aad iyo aad ugu dadaalaan dumarka. dumarka waxaa xuquuqaad lagu leeyahay ka mid ah zawjku hadduu xaadir yahay uusan ku maqnayn safar inaysan soomin, soonku hadduu soon sunno ah yahay ilaa haddana inay fasax qaadato. cibaadadii sunnooyinka waxaa la gelinayaa oo laga hormarinayaa fasaxa ninka markaa laga qaadanayo, fasaxa odayga laga qaadanayo ayaa laga hormarinayaa. ilan soonkan waa soon sunno ah, zawjkoo la ateecana waa waajib. waajib iyo sunno waajib baa la hormariyaa, xarad waa sidaa. soonka waajibkaa kuma jiro, soonka waajibka waa waajib, ninkoo la ateeca waa waajib. laba waajib hadday isku yimaadaana ka weyn baa la hormariyaa. ilaahay waajibkiisaa weyn subxaana wa tacaala. hadduu ninku safar jiro dhib ma laha, muhiim ma aha inay wacdo oo ay dhahda ma soomayaa, muhiim ma aha taa. waxaa laga hadlayaa zawjka oo xaadir ah, waxaa laga hadlayaa isagoo jooga, waxaa laga hadlayaa inuu shaqo un jiro soo hirgelayo, arrimooyin fara badan oo noocaas ah. waayo xikmado badan baa ku jirta taa laftigeeda. waxaa xikmadaha badan ay ku jirta ka mid ah zawjku wuu u baahnaan karaa gabadha nafsadeeda. ramadaan hadday tahay wuu iscelin oo uu og yahay, wuu sooman yahay. ama xilli aan ramadaan ahayn way dhici kartaa marka ayadoo maantoo dhan soonayd oo 6 sac soo dhaafto, 7 sac soo dhaafto, 8 sac markaa maraysa, ka waran haddii soon jabitaan iyo waxyaaba noocaas uu yimaado, dhib bay markaa noqonaysaa. idan habeenkiiba waa lagu talagelayaa, habeenkiiba waa lagu talagelayaa. idan hadduu siiyo fasaxo waa khayr iyo wanaag, hadduu diido way dhaafaysaa. soona ii diiday miya, waa soomayaa. itniin khamiisaan soomi jiray, carafaan soomi jiray, cashuuraan soomi jiray, weligaas soon cashuuriya carafo. xaqa ninkaa ka weyn buu rasuulku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam. idan waa xaq kale ee gabadha muslimadda ah lagu leeyahay, ilaahayna uu ugu talagalay inay uga gudato ugana soo baxdo sawjkeeda. xaqa gabadha muslimadda lagu leeyahay waxaa ka mid ah nafsadeeda, haddii uu u baahdo inaysan mancinin ama aysan diidin. xaqa wiilka kumaanan soo darin, gabadhu nafsadeeda haddii wiilka u baahato inuusan isku mancinin. laakiin qaar baa waxay tilmaamaan fuqahada inuusan asagu ku jirin, bacdamaa rasuulka uu ku tilmaamay keliya dumarka. xikmado dhowra marka la fiiriya sababteeda. xaqa marka gabadha muslimadda lagu leeyahay sida rasuulku tilmaamay sal alla alayh wasalam, haddii axadkiin uu sawjadiisa u yeerta buu dhahay nebiga, uguna yeerta ilaa firaashihi, oo intaa ka bacdi ka reebtoonaatoo diida, oo sidaa uu ku baryo asagoo qadbaan ah oo u caraysan, lacanadha almalaa'ika, malaa'igta baa lacanadaysaa ilaa ay ka raaligeliso. wa fii riwaaya ilaa ay ka waaberiisato. xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa nebiga, macbuudka samada ku sugan waa saakhid, waa u caroonaya, wuu u caraysnaanayaa ilaa ay ka raaligeliso, ilaa ay ka raaligeliso rasuulku tilmaamaa. axaadiista qaar waxay tilmaamayaan haddii loo yeerto falta'tihi ha timaado, ha ajiibto, wa in kaanat cala tanuur, jika muufaha baa ku jirtee. xabaddaa muufaha iska gubata haddii la doono, dib kuma sugna. idan waxa kale ee dhacayaa ka dhib badan, ka mashaakil badan. saa darteed baa riwaayad kale waxay tilmaamayaan wa in kaanat calaa dahri rabti dhabarkiisa. qolaa waxay ku fasiraan haba saarnaato dumarku marka ay dhalayaan, waxaa jirta meel loogu talagalay, meesha xataa haddii ay saaran tahay waa inay ajiibtaa. macnaha waxaa laga hadlayaa oo la tilmaamaya cilmiga weynaanta uu leeyahay xaaladda noocaas ah. idan waa la lacanadayaa ilaa ay ka waaberiisato. asaga ma la lacanadayaa oo hadal wax ka taagan yahay? sida ugu fiican waa in la yidhaahda maya. sababtu maxay tahay? dhowr cilad marka la fiiriyo. waa midda koowaade, inta badan ayaa dalabku waxa uu ka yimaadaa waa xagga ragga. si kasta ay u baahi qabto inantu, waa suuragal inay ka adkaysi badnaato ninka.
caaw un haddii wax loo diido waa suuragal inuu hadlin amase xanaaqo ama dhib kale uu la yimaado, ama ayada sidaa ma aha. dhinaca marka la fiiriy way ka nasabsan tahay. saa darteed baa asaga uusan sidaa ahayn. waa kow. ta kale inta badanba maba ka yimaadaba dalabka xaggiisuu ka yimaadaa inta badan. in kasta oo ay mataqaanaa baahi qabaan way ka istaxyoodaan, wayna ka xishoonayaan xaalad noocaas ah. way dhici kartaa sansaani ishaaraad iyo ashraad in lasa sameeyo iyo calaamaad iyo siimo lagu garto, balse caddaannimo markaa ma jirto. teeda kale wiilasha ilaah subxaana wa tacaala wuxuuba u baneeyey mararka gobol ka mid oo qur-aanku tilmaamaya hadday ka dhaartaan liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu 4 ashhur, 4 bilood waa inay sugtaa. wuu dhaartay matalan, haddii uu dhaartuu wax tilmaam samayn waayo wuxuu ku dhaartay inuusan xaaskiisa isticmaalaynin, 4 bil baa loo sugayaa, waa duusan tiro qabanin. hadduu tiro qabtana tiradii buu dhammaynayaa. bil buu ka dhaartay, sida rasuulka sal allau alayh wasalam xaasaskiisii buu ka dhaartay shahran, 1 bil, meel sare buu koray. 29 maalmood habeenkii ahayd buu soo degay. maxaa ku soo dejiyey bay dheen waadba dhaaratay bilaad dhaaratay. ashahru 29 buu dhahay nabiga, bishu waa 29. maxay ga rabtiin? saabuu ku soo degay. marka xaaladaas waxay tilmaamaysaa bacdamaaba iilaa loo baneeyey waysan ku dembaabaynin oo 4 bilood loo sugaayo. hadduu 4 bilood ka hor soo laabto falilaahi alxamdu, hadduu 4 bilood soo noqon waayena 4 bilood iska suga buu dhahay ilah subxaana wa tacaala dumarka. fain faa'uu fa ina allaha gafuuru raxiim. hadday soo laabtaan ilahi waa dembi dhaaf badanya. wain cazamu talaaqa, haddayse talaaq gooyaan ilahi waa casiiz xakiima subxaana wa tacaala. idan haddiiba 4 bilood inay sugaan dumarkii la yidhi, idan waxaa meesha ku jira in asaga osa markaa ku jira macnaa waxyaaba fara badan oo noocaas ah ayaa markaa la tilmaamayaa. idan xaqa lagu leeyahay gabadha muslimadda waxaa ka mid ah nafteeda inaysan ka mancinin sawjkeeda haddii uu doono, haddii uu u yeerto, taasaa markaa ka mid ah. laakiin maanta asagana shaquu aaday, salaadii subxeed ayadana wayba ka horaysayba, amse iskuol bay tagtay salaadii subax ka hor ama wayba ka horaysayba. markaasaa faraysan nuuxin karinba. qoftii dhammeed ee loogu talagalay inay wax xasiliso oo lagu soo dego maba ahaba, ayadaaba u baahanba la xasiliyo oo la dejiyo. in la xasiliyo oo la dejiyo ayadaaba markaa u baahan. marka allahu aclam guryaha sanadadan jira sida xaaladoodu ay yihiin, arrimahooda sida ay yihiin, ilaahay baa loo bandhigayaa subxaana wa tacaala. waxaan u sheeganaynaa basadeena iyo murugteena iyo tiraayadeena ilaahay subxaana wa tacaala. wax kaloo la tilmaamayo markaa maba jiraba, wax kaloo la tilmaamayo ayaan markaa jirinba. saa darteed gabdhaha muslimaadka intay dadaali karaan aad ha u dadaalaan, ilaahina ha laga baqo subxaana wa tacaala. guryuhuna wax allaala waxay ku islaaxayaan ay ku wanaagsanaanayaan in la sameeyo waa lagama maarmaan, in loo tanasulo waa lagama maarmaan. ciyaalkaa waxay ku wanaagsanaanayaan in la sameeyo waa shay lagama maarmaan ah. in laysku tanasulo labada waaweyn ee sabraano ciyaalka la fiiriyana waa wax weynoo meesha markaa ku jira. haddii kale dhibaato fara badan baa imaanaysa, mashaakil fara badan baa imaanaya, ilmo la qaato badan baa imaanaysa, kuwa dayacmo fara badan baa imaanaya, kuwa isticmaala mataqaanaa mukhaadaraad waxyaabo fara badan baa imaanaya. ayadoo wax kastaba ay imaan karaan, haddana marka lasii ishaysto oo qoysku isku dhegan yahay oo qoysku qoys ishaysta ay yihiin, way kasii qiimo iyo wanaag badan tahay. waana shay muhiim ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay. labadooda qofkii sabir badan baa ilaahay agtiisa u dhow, labadooda kii ilaah subxaana wa tacaala diintiisa ku dheereeya ilaa agtiisa u dhow, labadooda ka xuquuqaadka fuliya yaa ilaahay agtiisa u dhow subxaana wa tacaala. haddaba xaaladda waa lagama maarmaan, si fiicanna ha loo sameeyo, raggana ha sameeyaano ama ha ka soo baxaano xuquuqaadka ilaahay u jaangooyey, dumarkana saasoo kale ayagana ha fuliyaano xuquuqaadkii ilaahay dul saaray subxaana wa tacaala. ma anagaa saa-a iyo mana addoonsanayaa iyo maxaasaan noo yeelayaa iyo xor baanma waxaan doonaan samaynaynaa iyo ano intaa dhan buu i arkay iyo hadallo fara badan oo waxaa jira aan wanaagsanayn, suluugii ixtiraamka aan ku fiicnayn, akhlaaqda aan ku hagaagsanayn. ee qofka wiilka ahow gabadhana u dulqaado, u sabir in badan, xuquuqaadkan intaad kari karta la imow. gabadha muslimadda ee wanaagsanee saalixadda ahay ayadana wanaag, adigana wanaaga iyo khayrka inta uu yahay ku dadaal.
kuna talagal gurigu inuu aad iyo aad qiime iyo wanaag u yeesho. labada qofooda isqabtee u jeedaan labadoo lama wada wanaagsana, qof unbaa madaxiisa lagu joogaa. aad bay u yar tahay laba qofoodoo oo ii sheeg sidii loogu talagalay ka soo baxaya. hadday jiraan waa qalla maa yuujad, labadooda qof baa dulqaadanaya. qofa habeenkii carri iyo oohin ku seexda, labada qofood qofa habeenkii oohin ku jeefta, lagana dareemaynin. saasay guryo qaarkood ku dhisan yihiin. farxad iyo wanaag ha lagu noolaado. guurku waa raaxo, yaan laga dhigin jaxiime iyo cadaab. hadduu marka hallaabo qofkana waad aragteen, gabdhaa lagu kari la'yahay kaalaya nin guursada, kaala ninkan guurso. waxay ku leedahay saan inaan ku dhintaa aan go-aan ku gaaray aniga. sababtu waxay tahay kuwaa xumeeyey, ayadoo faraxsan oo isdhehaysa allay la qayb qaado oo nolosha si fiican kula qaybso, kii waxa ka dhigo, kii mataqaanaa gurigiina ilaa firdowsa dhismaada ka dhigo, kii ilmaha aad u dhali lahayd ka dhigo. mar alaa markay 7 kasoo baxda dhulka ku jiiday, ayadoo dhanba fiigtii ay ka qaaday iyo cararkii ay ka carartay ilaa hadda lasoo qaban la'yahay. ilaa haddeertaan waa lasoo qaban la'yahay. waayo mid kasta saasoo kale markaa u malaynaysaa. kuwa qarash baxiyey oo aad u dadaalay oo raajicis badan galay oo dacas uga dhammaaday oo wax kasta islahaa allayle haddaad gacanta ku dhigtay tii ilaahay subxaana watacaala kuugu talagalay oo nolosha tacabka iyo daalka ku ilowsiin lahaydoo nolosha aad la qayb qaadan lahaydoo raaxada fiican aad ka heli lahayd. mar allaala markii 4 habeen la joogo wuxuu la kulmay wuxuusan xisaabta ku darsanaynin, wuxuusan weligii ku fikirin ayaa maskaxdiisa dib kusoo dhahday. markaasaan lagu karin asagana kaalay tukaloo fiican baa lagu hayaa, tii hore dhegtiisa ka yeeraysa. marka hadduu saas noqdo, saas looga kala firxado, saas looga kala ordana, dhibkeeday leedahay. labadaas qofoodna waxaan leeyahay wax ka dhan sidaa ma ahan, ayaan ceeb weyn laga dhigin. guur maba rabiba, kan maba samaynay. waxaan ilaahay baa ammaanay, khayr buu ka dhigay. haddii wax yaroo imtixaana lagu saaray ha ka dhigin wax dhammaan saas oo waan ka ordayaa iyo saasaan yeelayaa. wiilkan waa inuusan sidaa yeelin. hadday taa xumaysay, taana kuway u wanaagsanaanaysaa. kan haddii ayada uu xumeeyeyna, kaas wax xumeeyey tub kaluu u wanaagsanaan doonaa insha allahu tacaala. xaalad marka saas inay tahay ha loo fahmo. qof kastana xaqa iyo wanaagii ha fuliyo, daacada ilaahayna sida ay tahay ha loo fuliyo. ilaahayna ha loo tala saarta subxaanahu watacaala. asalka hore iyo bilowgana ikhlaas alla dartii ah, iyo waxaan ilaahay dhex yeelay iimaan iyo ixtisaab ahaan oo lagu ajir xisaabsanayo ha loo galo, ha loo sameeyo. taasaa khayrkii wanaagu ku jiraa. saan xalay soo tilmaanay oo kale yana noqonin. kanna asagoo dhufays ku jira uu gurigii soo galay, ayadana ayadoo dhufays ku jirtay gurigii soo gashay. weli waxaan ka dheefaya male waa nin yurub joogee, bal waxaad ka qabsan karta ka qabso. waa kuwa yurub jooga. kuwii africa jooga waa nin africa jooga lagu leeyahay. kuwii carabta jooga waa nin carab jooga. naag carab joogta le waaye kolley faa'iida laga heli maaye, bal xal iyo laba haddaan ka hela aan arko. wixii dhan saasay markaa wada noqdeen. idan dhibaato fara badan baa marka gaaraysa haddii dhammaan saas la wada yidhaahdo. xaggee fiican? wax wanaagsan ma jirto. wax wanaagsan ayaan markaa jirin. kuwii xagga jira yurub jirna waxay leeyihin aan africa u doonano, inta niman fiican ma joogaan. kuwii african waxay leeyihin aan yurub u doonano, africa gabdho fiican ma joogaan. kuwii carab jirana laba meel bay soo tamaninayaan. marka wixii dhan buu isku qasan tahay. intaasoo dhanna waxaa kalifay ma fahamsanin guurka macaanidiisa. maxaa loogu talagalay? maxaa dhex yaala? raaxada dhex taala maxay tahay? arrimooyin fara badan oo noocaasaa markaa naga dhex maqan. asraarta ku dhex jirta yaanan dareensanayn, yaanan fahamsanayn. laba qofood, wiilka iyo gabadha, waxaad maskaxda ku haysaan war ninkan ma aha nin malaa'ig ah oo macsuumahoo la ilaaliyey. gabadhaanna ma aha gabar macsuumad ah oo markaa la ilaaliyey. ninbaa aad iyo aad wuxuu uga helay maalin gabar, aad buu uga helay. wuu deganaanteeda, asluubteeda, akhlaaqdeeda, deganaanshaheeda, wareeg la-aanteeda. wuu soo calmaday, wuu u bandhigtay, waa lagu mehriyey. habeenkii ugu horraysay saa markuu guriga u galay, subaxii wuxuu fadhiyaa maqaayadaha albaabkooda. anaa ku soo maray. maxaa dhacay xala waxaa ahayde? kaasuu yidhi markaas saas wax u tago
gacanta aan saas u taagayba nasiida kalabiyo saasay ii tiri. macnaha waata hadda tilmaamay waxaa u daahiray oo u soo muuqday wuxuusa xisaabta ku darsanayn. wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. marka shay uusan xisaabta ku darsanaynin ayaa markaa usoo daahiray. qoftii dhammayd ee u is yiri wallaahi inaan adduunka laga helay ma aha meeshuu jooga keliya, jiddo keliya ma aha, waa haddii adduunka oo dhan uu lahaa inaan tanoo kale laga helaynin. marka qofku waa bini aadam. teeda kale qofku mar allaala marka dhaqan marka lala wadaago ayaa la ogaan karaa sida ay markaa tahay. inta banaanka la joogo qof kasta oo is ilaalina, qaladkaa la iska ilaalinaya, hadalba hadalka kamacaya baa laisdhahayaa, waxba waxa ka fiicay baa laisku hadiyeynaya, ubax baa lasiinaya, waxaa lasiinayaa shokolaata lasiinaya, waxaa lasiinayaa mataqaanaa ice cream baa lasiinaya, waxyaaba fara badan. laakiin goormay xaqiiqdu imaanaysaa? xaqiiqdu waxay imaanaysaa marka dhaqanku yimaado, marka qof xanuunsado, marka qof baahdo, marka qof qaldamo, marka qof waxa loogu talagalay waxaan ahayn uu ku hadlo, sida laysugu sabraa iyo sida laysugu soo dhowaanayo markaasaa la ogaanaya. saa darteed bay fuqahada badankood waxay tilmaamayaan jaceylku goormuu bilowdaa, ma qabla azawaaj mise bacda zawaaj? waa su-aal meesha taagan. jaceylku goormuu yahayba mataqaanaa macaantiisa ama goormuu bilaabanayaa? qaar baa yiri intaan laysguursanin ka hor. suu ku yahay guurguur maba arkinba adiga qofkaani, weligaa inaad ka qaldantay laguma dulqaadanin, weli waxtarkaagi ma arkin. waxtarka la arkaa iyo sida xaaladdu ay markaa tahay waxay tahay waa mar allaala markaa dhaqanka iyo noloshu bilaabato oo nolosha la wada wadaago. waktigaasaa imaanaysaa waa in markaas uu qof ay imtiqaana gabadhu dareento kartidiisa, ay dareento naxariistiisa, ay dareento wuxuu qaban karo, ay dareento sida mataqaanaa uu wax u soo dhicin karo, sida uu xaaladdu ay markaa tahay. asagana saas oo kale sida qisada hadda aanu ka hadlayno oo kale, wuu iska baleeyey way fiican tahay iyo saan waay, wuxuu ka dheefay in kelib uu noqdo. macnaha goormay bilaabanaysaa, goormay lais ogaanaya? xilligaasaa markaa lais ogaanaya. marka bacdamay xaaladdu sidaa tahay waxaan ula jeedaa xaqiiqda in guryuhu ay hagaagaanna danteena ku jirta. islaamkana qiime iyo sharaf iyo wanaag buu u yahay. wuxuu asagu jideeyaa lagu mahdiyey. laakiin haddii tafaraaruqan saa ku socdo iyo qofaanba waxba ka fahamsanayn uu dacaayad iyo waxyaabo kale ku bilaabo islaamka guurkii waxyaabahaba waa saasoo gabdhaha dhan waa la wada furayo, dhibkaasaa markaa jiro, qaaraa la garaacayo, arrintaasoo dhan waa dacaayad bay u noqonaysaa islaamka. idan waxaa samaynin waa qofaanba garanaynin, fahamsanayn sida xaaladee iyo waxeeda ay markaa yihiin. arrimooyinkaas oo dhan nebi nuux iyo nebi luut xaasaska ay qabeen markuu ilahay tilmaamay wuxuu ku tilmaamay وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ساسا لوهاي فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قالك هو قلاي معي ولا لا قال هذا إذا انطلقات بالوهاي وحلوهاي أبكيسي وحلوهاي الصبر لكن ما يسمى متيسانين إلا إلهي تلمامي فخانتاهما. marka taa waxay tilmaamaysaa zawjka iyo guryaha marka loo soo laabto waxyaabo fara badan baa xaggeena ka qaldan oo loo baahan yahay tasxiix in lagu sameeyo, oo loo baahan dumarka in la wacyigeliyo, oo loo baahan ragga in la wacyigeliyo, oo loo baahan labadooda in la wada wacyigeliyo. xaaladahaasaa markaa in badan khayrka iyo wanaagga lagu gaaraa. waalidka laftigooda qayb bay ka qaataan in wax burburo in badan oo ka mid ah, in yaroo rabbi u naxariistay maahane. gabadha mar haddii la meheriyo gurigeeda la geeyo lagama haro, waa la taabaceeyaa. saxaabadu saasay ahaan jireen, xilligii nebiga saasay ahaan jirtay, waa la mutaabacaynaya, gurigeedii baa la tegaya, waa la ogaanaya. iyadoo xaaladdu saas ay tahay weliba yaa lasii ogaanayaa, faraha laga qaadi maayo. nebi maxamed meeqa mar buu tegay guriga ee cali ibn abi aalib faadimo, midkhal baa iiga sugnaa buu yidhi, ama 2 mar buu noo imaan jiray maalintii. mar allaala marka aniga oo tukanaya wuxuu tilmaamayaa cali in habeen uu yimid nebiga ayagoo jiifa. wuxuu tilmaamayaa habeen ayagoo hurdaaya inuu kiciyey, alaa tusalliyaan maa tukataan. ee gurigii lagu guursaday
ayaa mataqaanaa lasii tegaa oo lasii tafaaqudaya oo lasii baarbaarayaa. cabdullaahi ibni camar ibnu caas wuxuu yidhi ankaxanii abi imra'a daata nasab ama mansabin, mansab gabar u saaxiibo aabbahay ii guuriyey. intaa kabacdi todobadii markaan ka baxnay wuu u yimid ka waran cabdullaahi. macnaha xataa wiilkii waa la tafaqudaya, waa la baarbaaraya, waalidku way ogaanayaan cilad maa jirta, dhibaato maa jirta, khilaaf maa jira, maxaa xaalku yahay, see wax lagu barya maya lama yaqaan. waalidku waxay yaqaaniin bes waa la keenaya waa laga tegaa. bahal malxiisad la dhaho iyo tu oo toddoba bixis la yidhaahdo meel ay ka timid iyo wax ay taqaan aan jira aa lagu dhaafaa. toddobadii markii la gaaraa saxan iyo bakeeri waxyaaba inta dembiil lagu keena loo dhiga waana laga tegaa. xaaladaasaa markaa mamnuuca aan loogu talagelin. marka soo duhur inuu ogaado. nebi maxamed sal alla alay wasalam waqti duhur ah ayuu u yimid faadima. wuxuu arkay caliyoo maqan, meeshii ka maqan, aaba odaygaagii wuu iga xanaaqay. hadduu gurigiis iska fadhiya ka waran ma jirto, waa imaanaya, waa ogaanaya odaygaagii aaway maxaa ku dhacay, say xaaladiisu tahay, wuu iga xanaaqay maanta iima soo harsanin. asaa raadinaya, lugtiisu ku raadina, gacantuu kasoo qabana, waa la keenaya. la dhihi maayo bes waa laisku daray ha laga baxo. xaaladda noocaasna waxbay ka qayb qaadataa. waalidka marka khaasatan hooyadana inay mar walba gabadheeda la socoto, see waay xaaladda, misey wax u jiraan, waa maanta wuu soo galay maba ku salaaminba, maba hadlaysiin. xaalad noocaas oo kale. odayga saas oo kale sida cabdullaahi ibni camar ibni caas markuu ku daray ii sheeg gabadha aabihii wuu u yimid. kayfa cabdullaahi nicma rajul bay tiri, waa nin wanaagsan laakiin mara nagama qaadin. soo u yimid habeenkii meeqa la marayaa, 7 laga baxay, sariirtana ma soo seexanin. macnaha hadduu intuu ku daray gurigiis iska aado iska jiifto say xaaladiisu noqonaysaa ma ogaan karo. gabadh waxaa dhici karta inay seeda isaga aamusto, asaga waxaa dhici kara ninka inuu sidiisa isaga aamuso dhib uu qabo. idan marka tafaquhbaa la sameeyaa, daawa la sameeya, waxbaa la raadiyaa. rasuulku markuu ninka cabdullaahi markuu aabihii u yimid gabadhii, iga waran wiilkaaga wuu fiican yahay laakiin ma soo seexanin weli, mara nagama qaadin weli. nabiguu u sheegay sal alla alayh wasalam ilan cilaaj baa la raadinaa, daawa la raadinaa. intaa kabacdi baa nebiga yidhi ii ballami, waa loo ballamay. war cabdullaahi see xaaladaada tahay, waan fiicannahay yaa rasuul allah. see qur-aanka u akhrisaa, maalin kastaan habeen kastaan qur-aanka dhameeyaa. see u soontaa, maalin kastaan soomahaye. waa laga celinaa marka. saas ma aha, inanta dhib baa imaanaya, waxbaa soconaya. marka wiilka hadda inta gabar guursada iska baxay oo mataqaana wadamadaa kale iska tegay oo meesha iska fadhiistay, in aabiis uu waco hayay xaaladda ka waran, goormay kugu dambaysay, goormeed la hadashay, waxyaaba fara badan baa imaanaya. gabdhahan habeen iyo maalin cabanaya oo taleefanada shiiqida ku wareerinaya oo markasta su-aashu ay tahay 7 baa layga maqan yahay iyo 10 baa layga maqan yahay iyo taleefon baa layga dansaday iyo meel uu ku sugan yahay ma og iyo see yeelaa oo markasta leeyahay shiiqa magaaladaas jooga u tago si wax loo kala xukmilo ayaa la la-yahay. intaa way yaraanaysaa. waa mar alaal marka waalidka dabagal ay ku sameeyaan xaaladan ay markaa ogaadaan. say noqotaba hala dadaalo. ilahay xaqa waxaan ka baryayna xaqana waafajiyo, taacadiisana markaa nagu sugo, guryahana ilaahay inuu ka dhiga subxaana watacaala guryaha hagaagsan, dumarkana inay kasoo baxaan xaqa markaa lagu leeyahay, ragguna saas oo kale ayaguna ay kasoo baxaan xuquuqaadka lagu leeyahay. ilah waxaan weydiisanaynaa khayr iyo wanaag, bulsho wanaagsan, bulsho mataqaanaa guurku ku bato, bulsho oo mataqaanaa furiinku ku yaraado ama laga waayo. bulsho waxaan weydiisanaya inuu ilaahay naga dhiga khayrkii wanaaga, aad iyo aad ugu socota, isku sabirta, isku dulqaadata, rag iyo dumar ha hagaagsan oo guryahooda guryo islaam ah oo diin alla lagu dhaqo oo diin alla lagu hago in la noqdo. taasaan ilaahay ka barya subxaana watacaala. shaytaanka iyo sharta inuu ilaahay naga qabto subxaana watacaala. ilaahay in badan baan ka baryaya. shaytaan baa jira loogu talagalo lagu salidayba sawjaadka in ama dhibaata inuu ka abuuro ilaa heer uu gaaro inay isfuraan. kaasaa taajka la siiyaa, kaasaa shaytaanka ugu weyn madaxa taajka u geliyaaye saa madaxa taajka loogu gelinin, taaj la siiyana uu waayo. isku sabro, isku dulqaata, khayrkii wanaagana ku dadaala, umuurihiina idinka xalista, bannaankiisan waxba usoo bixin. shiiq iyo sharaaf iyo caami qof kastaba yaynan idinka gaarin. in badan idinka isku dulqaato, isku sabro. ilaa shar iyo shaytaan allah idinka qabto, khayrkii wanaagana allah idin waafajiyo, guryo qiimo badan oo wanaagsan guryana allah ka dhigo, ubadkiina allah idin hagaajiya subxaana watacaala. ilmaha aad dhali doontaan kuwooda kalena ilaahay subxaana watacaala khayr iyo wanaag allah idinkaga dhigo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa guryaheena inuu nooga dhigo guryo sii dhisnaadaa ilaa ilaahay agtiisa laga taga subxaana watacaala. jannatulfirdowsana ilaahay nagu abaalmariyo. وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى